muxuu yahay xukunka isticmaalka macjuunka ilkaha lagu cadaydo ama lagu nadiifiyo iyada oo lagu jiro maalin cad oo ay ramadaan ay tahay? sidoo kale haddii ay gabadhu ay daahir ay noqoto ama ay daahirto fajarka kadib si toos ah ama daqiiqada yar kadib fajarka kadib, maalintaasi iyada ah soonkeedu miyay xiranaysaa oo ajirkiisana ma leedahay mise waa ay soo qalaynaysaa? ka warrama qofka haddii habeenkii uu janaabo oo uu waaga uu u baryo ama qoraxdu ay ku soo baxdo isaga oo janaabo ah oo uu markaasi uu qabaystaa, qoraxdu marka ay soo baxda kadib soonkiisa ma sii wadanayaa mise maalintaasi waa lagu leeyahay? su-aalahan iyo su-aalo kaloo badan oo maskaxdaada ka dhex guuxayo ayaan jawaab waafi ah kaa siinayaa muuqaalkan gaaban ee in ka yar 10 daqiiqo socon doono. balse inta aanan muuqaalka si toos ah aanan u gudagelin, waxaan kaa codsanaynaa in aad channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe-ta iyo like-ta iyo weliba commenti kaa dhex guuxaya haddii uu jiro su-aal ama weydiin aad nagula wadaagtaa qeybaha tacliiqaadka ama commentiska. halkani waa channelka aan ku leeyahay YouTube-ka ee Macalin Muuse Official. waa hagaag. bismillaahi raxmaani raxiim. ugu horeyn, muxuu yahay qofka sooman isaga oo afkiisa uu xiran yahay in uu isticmaalo macjuunka ilkaha lagu cadaydo ama lagu caddeeyo? maxay diintu ka qabtaa? soonkiisase muxuu dhib ah u ku keenayaa? jawaabtu waxay tahay qofka soomani inuu isticmaalo macjuunka laa ba'sa bihi, wax dembi ah ama wax dhibaato ah oo ay soonkiisa ku keenayso ma jirto. haddii waa shardi, haddii aanu macjuunka u dhaadhicin ama aanu u daadigin maxay caloosha, waxaa wanaagsan laakiin inaanu isticmaalin. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay maxaa yeelay macjuunka ayaa sidiisaba waxay u badan tahay mar haddii afkaaga uu galo adiguna aad cadayanayso in tifiq yarba allah ka dhigay inay calooshaada u dhaadhacdo ayay u badan tahay. falidaalika adiga oo aanan dareemin weliba, falidaalika marka waxaa wanaagsan oo aan kugula talinayaa inaadan isticmaalin macjuunka. sidaasi daraaddeeda marka ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi markii uu weesaqaadka uu ka hadlayay, baaliq fil istinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman. ku xeel dheerow istinshaqa. istinshaaquna waa sanka oo biyaha la geliyaa oo laga soo bixiyaa. ilaa an takuuna saa'iman, haddii aad sooman tahay mooyaane. oo haddii aan soomanaha maxaa dhacayo? haddii aad sooman tahay laga yaabay biyuhu inay kugu tagaan ayaa loo baqanayaa. waxaa wanaagsan marka inaanu qofka aanu isticmaalin ee sooman macjuunka inaanu isticmaalin. xataa haddii bacdal afurka maqribka kadib oo kale haddaad dib u dhigato macjuunkaaga iyo burushkaaga iyo aad isaga cadayato, laa ba'sa, wax dhibaato ah ma lahan. sidaasaana aa kuu fiican, maxaa yeelay soon iyo wax aad u cabsanaysid ma jiro. su-aasha labaad, gabadhu haddii ay daahir ay noqoto salaada subax mar la adimay fajarkana uu soo dilaacay kadib, maalintaas iyada ah gabadhaasi soonkeeda ma xiranaysaa mise waa laga rabaa soonkaas? jawaabta, haddii gabadha dhiigga uu ka go'o waktiga fajarka uu soo daahiro oo uu soo daalico ama in yar ka hor haddii uu ka go'o dhiigga, maalintaasi soonkeeda waa ansaxayaa. xataa haddii ajirkeedana waa ay leedahay, xataa haddii aanay qabaysanin xitaa oo ay qabaysato waaga markuu si toos ah uu u dilaaca kadib, haddii ay qabaysato maalintaasi soonkeeda waa maqbuul, wax qallah oo laga doonayo haba yaraatee ma jirto. laakiin hadduu dhiigga aanu ka go'in ama uu ka go'o marka waaga uu dilaaco oo uu baryo, markaas haddii uu ka go'o oo fajarkiina uu soo baxay kadibna uu ka go'ay, haddii ay xaaladdu saas ay tahay maalintaasoo dhan afka way xiranaysaa
horta waxba cuni mayso waxna cabi mayso laakiin way qaleynaysaa maxaa yeelay caadadii way ka go'day oo waxaa laga doonayaa salaad inay dukato qof salaad lagu yeeshay oo wujuubkiina uu ku noqday waajib de wax ma cuni karo waxna ma cabi karo falidaalika marka gabadhaas iyada maalintaas ma quraacanayso ma qadeynayso waana soonkeedana way soo qaleynaysaa wax ay cunaysana ma lahan qaar baa waxay qabaan marka culimada qaarkood mar haddaanu ajri aanay ka helaynin maxay ka faa'iideysaa may iska cunto qaar dhahay way jiraan laakiin waxaa fiican maadaama aad min alwujuub aad ka mid noqotay dadka waajibka uu ku yahay aad ka mid noqotay inaad ilaashato maxaan ku idhahdaa aadan cunin aadan cabin maalintaasna waa lagugu leeyahay qalehdana waa lagaa doonayaa ayib su-aasha saddexaad qofka soomani haddii janaabo uu ku dhaco tusaale ahaan xalay oo kalaa seexday waaga markuu bari hurdaa ila tagtay qoraxdiyaa soo baxday xalayna waa isku junuubay waa riyooday ixtilaam maalintaasi soonkeyga waa sidee jawaabtu waxay tahay waxaa ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalama bacdu aathaarna soo arooray inuu nebiga sala allahu calay wasalam waaga uu u beri jiray fajarkana uu geli jiray isaga oo janaabo qabo oo min ahlihiina janaabo ka qabo markaas kadib uu qabaysan jiray waa una soomi jiray maxaa yeelay ikhtisaalka ama qabayska maadaama uu yahay shardi uu u yahay lisixati salaa salaada ansaxnimadeeda maadaama uu u yahay shardi uu u yahay ma banaana marka in dib loo dhigo salaada subax waqtigeeda in dib looga dhigo ma banaana oo qofku mar walbo waa inuu dukadaa laakiin haddii ay dhacdo in hurdo ay ka adkaato qofka oo uu soo kaco barqadii oo kale 4 saac camal 5 saac camal uu soo kaco hurdo ay la tagto oo kale markaasoo kale wuu qabeysanayaa wuu dukanayaa salaada fajr ayuu markaas uu soo kacay uu dukanayaa soonkiisana waa uu sii wadanayaa wax lagu leeyahayna oo qalla ahna ma jirto waxaa kaloo la mid ah haddii qofka galbihii oo kale ama duhuradii oo kale oo uu siixdo oo uu hurdo oo markaasina ay inta uu riyoodo wax ay ka yimaadaan soonkiisa wuu sii wadanayaa maxaa yeelay isaga waxaan wax uu kas iyo maag uu u sameeyey ama si ula kac uu u sameeyey ma ahan marka saas daraadeeda qofka marka uu hurdaayo waa marfuucul qalam rufica alqalam can 3 siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam 3 waa laga kor yeelay maxay qalinka annaa'imu xataa yastayqid qofkan hurdaayo ilaa uu ka soo kaco saas daraadeeda qof hurdaayo wax dembi ah iyo wax ajar ah ma shaqaysan karo sidii qof dhintay oo kale oo safxadiisa la laabay oo kale ayuu la mid noqonayaa 3 mas'alo oo laga yaaba inay ka dhex guuxayeen ama aad isweydiinaysay ayaa laga yaabaa inay tahay oo aad maanta ka faa'iidaysatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh afkeyga ka soo saaray intaasi inaan idin faa'iideeyo insha allahu tacaala intan iyo in kaloo badanne waad ka faa'iidaysaa haddii aad ku xiran tahay channelkeena youtube-ka ee macalin muuse mar haddii aad halkan nala soo gaartay wax kaloo ii hare male ilaa inaan ku iraahdo mooyaane aad baad u mahadsan tahay baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayran liljazaa hana hilmaamin channelka inaad ka dhigato channelkaaga hoygaaga oo aad subscribe-ta gambaleelkana furato si uu ku soo gaara muuqaalada inuu soo dhigno maalinba maalinta ka dambeyso aadaa u mahadsantihiin muuqaalkan muuqaalka xig intaynu ku kulmeyno anigu waa macalin muuse channelkuna waa channelka macalin muuse wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu